السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين سلام قبيد ولا شيء فردوس الجيم لايف سومالي وهروح وترى الدنيا يقفنا ولا يمحى أركتك ولا بن معناه يحبين دا الدنيا دوسو تاجنتها نور شيء مركز صوح كايا بيعركيسا فيديو بريان واحد جري ولي جبر إسقبان وواحد مالنا برت يوتيوب كن اللي لكن فيسبوك أنكو أركو أد لو هذا الهاي يضع وذاك هذا لويسة ساس ولا اللي فيس سيدي دليرو آيس كريم ما فهمتين أنا قف كستو بسبو فيديو واحد لي أنا جانا إن شاء الله برتنا واحد لي أو يوتيوب كذا ما هذا يوتيوب نما جيسني فيديو أنا كذا هذا لي ما تشعل دتك يوتيوب كنا نقف لنا قليل لكن ما حنجعل فكرة أهان وحيانا عارمها بلشة مركلا كانوا انقاد كو أركو وحي يجهبون إن عيجا وحن كده إن برت فيسبوك وكدستو هدول لا يدين روياي أنا فيديو وصان وأركي ويل كان في العلم بكسب بحيو حاسكي وان شعل كلام مدي دنا محا أنا جديدنا هويان محا هذا الكيجا أوجد الجاية أرنت كوادن كلا يا فيديو جو حصوه ردوبتي ولا شيء جود الصومالية يدا أضيق هذا إن تصنس إن كوكنا صنتهاي ما شاء الله وحن معها لكن محاهم ويان فلكي أكشن كسميسي أياهن وحالي دورة ذا وحوي وضعنتها أو ناكستو أما ولا صوت نقضوا ولا قبي تشريسي ذو كله أما وجبر جوردانا أما وجبر هذا لقبه غير له دورة ذا عنتها وضعنتها لكن أفترشة إسدارتها ناكستا بنين كذا سوء قنعيسو يسيل وجه وننوكتو يسوء دوك تبو ويذا وحي سميسو وبروفيسي waxaan Soomaali confuse ku nahay wixii prophecy aha iyo wixii aha entertainment in between ayaan confuse ku nahay ma fahantaa hadaan oo risq baan waxaan ku raadinayaa anigoo odaygeyga ilaa hadda oday milaadu mid qarqab ilaahay lagu dhuuqayo ayaan isa soo duweena that is a shameful the way ana hadalkayga sii wato abaayo gabar kasta ma waxaas ama waa single mother ama reer bay rajeynaysaa الدنيا أنت سو millions women كونول أما وامد لقبو أما وامد لسوق بيجرا مو واحد كبعد الجرسنا يواي إن موفي ذا قلات كي قلدان يكون لقى حسم أوجي ما أركيس دنا نورمال قالنا الله كديجا مكرشان الله كديجا باب لقى إيمانه يدو نك هذا فريسي لوجه لوقيسو that's kind of disgusting هدا حتى سميسيا كل هذين يسجنوا جونيا وحكوا قروح بدن behind the door ما هنا أنا كنا ليش الجلسة سريرت هذا وحكي نعلو that's how أنا هو أركو basically وحكوا يا كده عنا ليش الجرينا زي فيديو كوري وحجة إسلام سومالي وضي عدان قول وجيس لوقيسي ما هو أركا أنا كصادر درتين وحالي هذا dadka markuu reer magaalmanida iska raadinayo meel xun buu ka dhacaa ma fahantin mana ka hadlayo reer magaalmanidi ayaa si channel raadiskan wax yar inta kaga sheegaya ku soo celcelisay ninkaaga baari hadaa u noqotay channada galaysaa in adeer horta anigu wadaad miihi laakiin diinta basic waa ka garnaa xadiis badan waan dhageystay channada ninka laga maraadiya camalaadkaaga adiga aafasho iisa ilaahay ugu cibaadaystid iisa umada kaaga dhoorsan tahay iisada afka iyo adinkaaga looga amaan helo iisa waalidkaaga baar ugu tahay umada bid'aadankana baar ugu tahay qof kasta jannada lagu helaa shakhsigan janna ka raadinaysa isaga inuu ka raadiyo weeye ma faatmana ka hadlayo ha isdhiin janna raadinaya tiri kaamirad baa soo fadhiistay in public intaas oo milyan oo Soomaali oo ku daawanayo boqol dumar oo kale ila ra'yo ku jiro isla qiimo weyn ayaa nin inta qaada lugiisu dhuuqdo nabde dhuuq kuma diidana waa ninkaagi de gurigaaga albaabka ku xiran ku dhuuq baraha bulshada hala imaan waa maxfal xumadan cad oo socoto dumarkiina in adeersay si inuu walaalo waxa la dhigi jiray raggal wada meel macnaheedu waxaan ka wadaa dumarka reer soo wada dhaqan oo kale reer baan soo dhaqday waxyaalo badan oo privacy iyo oo ii qorsoon oo gurigeyga albaabka ii xinaani odaygayga sameyn jirnaa jirto gabar kasta odayna way soo dhaqatay gaal iyo muslimbo ama wato hada la qabo wax public la iimaanayo oo la dhuuqayo oo fara laga dhuuqayo oo lugta saas loo leefayo adika hore ma arkin intii ka horeyso odayga cadaanka qabay waxaasi waa fool xumo waxa quality-ga hoos u riday gabdhaha aniga dhalay anigoo kale gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha wada quman oo isla qiimo weyn ayaa quality-ga ritay anaku ma aha inaan jano ku raadino lug meel ka samaraysi inaan malafsano subxaana casa wajalla gabdha Soomaaliyeed waa ka soo darteen waa lagaaga horeeyay islaam baa ka horeyso lugaha ninka uu malafeysay ilma adeeranta caad iska dhigtiin nimankiina jano ka raadiyo wax wanaagsan sameey laakiin anaka noola iimaanina interest kuma nihin lug la leefay wax ra'yi laakiin taabiga kalena waxaan u galayaa odaygeedii
كابتن تدو waxaan kala hadlayaa ninka qabayo yiraahdo xaaskayga waan jeclahay hadii lagu yeelay laftana lagu aan leefaya yes xaaskaaga waa jecesho labada qof bidaaadnaka isma guursadaan isku mana hamiyaan haduuna jecel kalkulsoon qaban rag badan oo sidaado kale ma sha Allah boqolo gabdho wada qabaa jooga ma fahanti wax kasto wanaagsan xaaskooda u sameeyaan laakiin adiga ka hor ma arkin public lugta ku leefay adigana ma fahanti I don't know waxa bareejinaysid taasi jecel lama dhaho do you use baatay and I'm sorry my language do you use waxa weeyaan ninka naagtiisa intuu public la yimaado lugta u leefo u samee oo waxyaaluhu Ilaahay ku farsamay wixii diintu ku farsamay laakiin public hala imaanin moog waxa iska gadgadaysiin walaalayaal lug la leefay lugta aniga aan leeyahay dhaqon nadiifiyaan kala la boodana carabkaygu u dhaweeyo waa lug bidaadan top of that come on now lugta meel kasta martaa so many bacteria meel kasta kaga jiro isku masaajeey isku riix xaaskaaga laakiin rag badan oo waxa jira single ah xaaskaaga la shargareyn the use baatay xaaskaaga snap youtube kala caw garaadna ilma adeer waxaan sugayaa fikradihiina iyo ra'yigiina iyo commentiyada idinkoo xanaf ku jirin insha Allah saa ugu soo jawaab lahayn Soomaali weynay maskaxdini ay ku yigiin rabaa inaa ogaado waa walaashin Firdawsi Jim Laf oo adkaysan weysay islaamahan lugaha malafsanayaan subxaan asa wajila noo kala wada quality-gan hoosa u riidina war yaa ragyow boqol anagoo kala nool lugana ma malafsanayn laakiin sideena kala iyo wanaagana iyo sharaftaana iyo dhaqankeena dad rag ku qancinaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وين سلام قبيد ولاشي فردوس جيم لايف Soomaali waa hore wuxuu tiri adduunyo qof noolay maxaa aragti ku laaban macnaheedu waxa weeyaan hadaa adduunyadu soo taagantaa nooshay markasta wax ka yaabiya arkaysa video bariyaan waxa jiri wili gabar isqabaan waxaan u maleynayaa barta YouTube inay leeyihiin laakiin Facebook aan ku arko aad loo hadalhaayay iyadoo odaygeeda lugiisa saas u leefayso sidii dhalinyaro askariim ma fahanteen qof kastaba siduu video uga hadlay anigana insha Allah bartan baan uga hadlayaa oo YouTube kaga ma hadlay YouTube na ma geesanayo video aan kaga hadlay ma jecli dadka YouTube inaan ku falanqeeyo laakiin waxaan jeclaa fikrad ahaan waxyaalaha arrimaha bulshada marka la keeno aan qalad ku arko wixii iiga haboon dhinacayga waxaan ka dhaho inaan barta Facebook ku deesto haduu Ilaahay idin roon yahay aniga video-gaasaan u arkay wiilkana falcelin buu ka soo bixiyay wuxuu yiri xaaskayga waan jecel kale ma diidane maxaa aniga diidanahay weeyaan maxay uma hadalkayga u gudal gaaya arinta koowaad ka leeyahay video-ga waxa soo hor duubtay walaashan gabadha Soomaaliya iyadoo odaygeeda na tusinaysa inay ku qanacsan tahay ma sha Allah wax xun maaha laakiin maxaa xun weeyaan falki iyo actionka sameysay ayaa xun waxa la yiri doorada wax way wada cuntaa oo naakasto ama wala soo dhaqdo wala qabi jiray sidoo kale ama waa gabar guurdoona ama waa gabar hada la qabo reer leh doorada cuntada way wada cuntaa laakiin after tirashada is dheertaa naakastaba ninkeeda see u qanciso iyo see lugaha ugu nuugto iyo see u duugtaba waa iyada waxay sameeyso waa prophecy waxaan Soomaali confuse ku nahay wixii prophecy ahaa iyo wixii ahaa entertainment in between ayaan confuse ku nahay ma fahantaa daan oo risq baan waxaan ku raadinayaa anigoo odaygeyga ilaa hadda oday milaadu mid qarqab ilaahay lugaha u dhuuqayo ayaan isa soo duweena that is a shameful the way ana hadalkayga sii wato abaayo gabar kasta ma waxaas ama waa single mother ama reer bay rajeynaysaa adduunyo intaas soo millions women ku nool ama waa mid la qabo ama waa mid la soo qabay jira ama hadda ka bacdi la guursanayo way inay movie-yada qalaadka iyo qaldan iyo ku dhigan waxaas ma ogiye ma arkaysid dad normal ah gaalna Allah ka dhiga ama Christian Allah ka dhiga bab laga la iimaanayo iyadoo ninkeeda fariisi lugaha dhuuqayso that's kind of disgusting hadaa hataa sameysida ku raadinaysa jano gooni ah waxay ku qorux badneed behind the door maaha in aanka la sheergarisay sariirtaada waxa ka dhacdo that's how aniga ahaan aan u arko basically wixii guriga ka dhacdhacana la sheergareynaysa video ka horeeyo waxa jirta islaan Soomaaliyeed oo oday cadaan qabo lugihiisa dhuuqaysay maxaan u arkaa inaa ka soo dardarteen waxa la yiraahday dadka markuu reer magaalnimada iska raadinayo meel xun buu ka dhacaa ma fahanteen mana ka hadlayo reer magaalnimada ayaa si janaraadiskan wax yar kaga sheegaya ku soo celcelisay ninkaaga baari hadaa u noqotay janada galaysa in adeer horta anigu wadaad miihi laakiin diinta basic waa ka garnaa xadiis badan waan dhageystay janada ninka laga ma raadiyo camalaadkaaga adiga aafasho Iisa Ilaahay ugu cibaadaystid Iisa umada kaaga dhoorsan tahay Iisa afka iyo adinkaaga looga amaan helo Iisa
waalidkaaga baar ugu tahay ummadda bid'aadankana baar ugu tahay qof kasta jannada lagu helaa shaqsigan janna ka raadinaysa isaga inuu ka raadiyo weeye ma faatamaana ka hadlayo ha isdhiin janna raadinaya tiri kaamirad baa soo hoos fadhiistay in public intaasoo milyan oo Soomaali oo ku daawanayo 100 dumar oo kale ila ra'yi ku jiro isla qiimo weyn ayaa nin inta qaada lugiisu dhuuqda nabde dhuuq kuma diidana waa ninkaagi de gurigaaga albaabka ku xiran ku dhuuq baraha bulshada hala imaan waa maxfal xumadan cad oo socoto dumarkiina in adeersay si inuu walaalo waxa la dhigi jiray rag gal wada meel macnaheedu waxaan ka wadaa dumarka reer soo wada dhaqan oo kale reer baan soo dhaqday waxyaalo badan oo privacy oo ii qorsoon oo gurigeyga albaabka ii xinaani odaygayga sameyn jirnaa jirto gabar kasta odayna way soo dhaqatay gaal iyo muslimbo ama wato hada la qabo wax public la imaanayo oo la dhuuqayo oo fara laga dhuuqayo oo lugta saas loo leefayo adiga hore ma arkin tii ka horeyso odayga cadaanka qabay waxaasi waa fool xumo waxa quality-ga hoos u riday gabdhaha aniga dhalay anigoo kale gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha wada quman oo isla qiimo weyn ayaa quality-ga ritay anaku ma aha inaan jano ku raadino lug meel ka samaraysa inaan malafsano subxaana casa wajalla gabdha Soomaaliyeed waa ka soo darteen waa lagaaga horeey islaam baa ka horeyso lugaha ninka uu malafeysay ilma adeeranta caadi iska dhigtiin nimankiina jano ka raadiyo wax wanaagsan sameey laakiin anaka noola imaanina interest kuma nihin lug la leefay wax ra'yi laakiin taabiga kalena waxaan u galayaa odaygeedii ka kabtantada waxaan kala hadlayaa ninka qabeeyo yiraahdo xaaskeyga waan jeclahay haddii lugu ii laftana lugaha u leefaya yaas xaaskaagu waa jecesho labada qof bid'aadnaka isma guursadaan isku mana hamiyaan haduuna jecel kalkulsoon qaban rag badan oo sidaas oo kale ma sha Allah boqolo gabdho wada qabaa jooga ma fahanti wax kasto wanaagsan xaaskooda u sameeyaan laakiin adiga ka hore ma arkin public lugta ku leefay adigana ma fahanti I don't know waxa bareejinaysid taasi jecel lama dhaho do use baatay and I'm sorry my language do use wax weeyaan ninka naagtiis intuu public la yimaado lugta u leefo u samee oo waxyaaluhu Ilaahay ku farsamay wixii diintu ku farsamay laakiin public hala iimaanin موج واحد إسكت جديسين ولا عليا لوج للليفي لوج تاني عن لا يعني نقول نضيفيان كلا لبعضنا عرب كيقول ويو ولوج بدي أعدل top of that come on now look to ملك استيم مرتا so many bacteria ملك استكجت جيرو اسكو مساجين اسكو ريح حاس كاجا لكن رك بدنا واحد جرت سينجلا حاس كاجا على شرقرين دي يوس باتي حاس كاجا سناب يوتيوب كل عو جرا المادريال واحد سوقيا فكرة ذي هنا يرأيجينا يكومنتيدا إذنكو حنف كتشيرين إن شاء الله سأقصوا الجواب لهنا الصومال ويني مسكحدني أيكو يجينا رواينا أوقاده وأول شيء فردوس الجيم لف وقت كيسين ويسي إسلامها نلغاها ملف سنيان سبحان عسى وجل نوك على وضع كواليتي إنه سأريدنا وريا رجعوا بقول أنا جو كلا نور لغني ما ملف سنين لكن سيدا كلي وناجن إن شرفت أنا إدقن كنا دت رجعوا كوقن عنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصومال وين سلام جويد ولا شيء فردوس الجيم لايف Soomaali waa ruux oo tira adduunyo qof noolay maxaa aragti ku laaban macnaheedu waxa weeyaan hadaa adduunyadu soo taagantaa nooshay markasta wax ka yaabiya arkaysa video bariyaan waxa jiray wili gabar isqabaan waxaan u maleynayaa barta YouTube inay leeyihiin laakiin Facebook aan ku arko aad loo hadalhayay iyadoo odaygeeda lugiisa saas u leefayso sidii dhalinyaro askariim ma fahantiin qof kastaba siduu video uga hadlay anigana insha Allah bartan baan uga hadlayaa oo YouTube kaga ma hadlay YouTube na ma geesanayo video aan kaga hadlay ma jecli dadka YouTube inaan ku falanqeeyo laakiin waxaan jeclaa fikrad ahaan waxyaalaha arrimaha bulshada marka la keeno aan qalad ku arko wixii iiga haboon dhinacayga waxaan ka dhaho inaan barta Facebook ku deesto haduu Ilaahay idin roon yahay aniga video-gaasaan u arkay wiilkana falcelin buu ka soo bixiyay wuxuu yiri xaaskayga waan jecel kale ma diidane maxaa aniga diidanahay weeyaan maxay uma hadalkayga u gudal gaaya arinta koowaad ka leeyahay video-ga waxa soo hor duubtay walaashan gabadha Soomaaliyeed iyadoo odaygeeda na tusinaysa inay ku qanacsan tahay ma sha Allah wax xun maaha laakiin maxaa xun weeyaan falki iyo actionka sameysay ayaa xun waxa la yiri doorada wax way wada cuntaa oo naakasto ama wala soo dhaqdo wala qabi jiray sidoo kale ama waa gabar guurdoona ama waa gabar hada la qabo reer leh doorada cuntada way wada cuntaa laakiin after tirashada is dheertaa naakastaba ninkeeda si u qanciso iyo si lugaha ugu nuugto iyo si u duugtaba waa iyada waxay sameeyso waa prophecy waxaan Soomaali confuse ku nahay wixii prophecy ahaa iyo wixii ahaa entertainment in between ayaan confuse ku nahay
ما فهمت هدان oo risq baan waxaan ku raadinayaa anigoo odaygeyga ilaa hadda oday milaadu mid qarqab ilaahay si lugaha u dhuuqayo ayaan isa soo duweena that is a shameful the way ana hadalkayga sii wato abaayo gabar kasta ma waxaas ama waa single mother ama reer bay rajeynaysaa adduunyo intaas soo millions women ku nool ama waa mid la qabo ama waa mid la soo qabay jira ama hadda ka bacdi la guursanayo way inay moviyada qalaadka iyo qaldan iyo ku dhigan waxaas ma ogiyay ma arkaysid dad normal ah gaalna Allah ka dhiga ama Christian Allah ka dhiga bab laga la iimaanayo iyadoo ninkeeda freeze iyo lugaha dhuuqayso that's kind of disgusting hadaa hataa sameysida ku raadinaysa jano gooni ah waxay ku qorux badneed behind the door ma aha in aanaka la sheergarisay sariirtaada waxa ka dhacdo that's how aniga ahaan aan u arko basically wixii guriga ka dhacdhacana la sheergareynaysa video ka horeeyo waxa jirta islaan Soomaaliyeed oo oday cadaan qabo lugihiisa dhuuqaysay maxaan u arkaa inaa ka soo dardarteen waxa la yiraahday dadka markuu reer magaalnimada iska raadinayo meel xun buu ka dhacaa ma fahanteen mana ka hadlayo reer magaalnimada ayaa si janaraadiskan wax yar inta sheegaya ku soo celcelisay ninkaaga baari hada u noqotay janada galaysa in adeer horta anigu wadaad miihi laakiin diinta basic waa ka garnaa xadiis badan waan dhageystay janada ninka laga maraadiya camalaadkaaga adiga aafasho iisa ilaahay ugu cibaadaystid iisa umada kaaga dhoorsan tahay iisada afka iyo adinkaaga looga amaan helo iisa waalidkaaga baar ugu tahay umada bid'aadankana baar ugu tahay qof kasta janada lagu helaa shakhsigan jana ka raadinaysa isaga inuu ka raadiyo weeye ma faatamaana ka hadlayo ha isdhiin jana raadinaya tiri kaamirad baa soo fadhiistay in public intaasoo milyan oo Soomaali oo ku daawanayo 100 dumar oo kale ila ra'ayo ku jiro isla qiimo weyn ayaa nin inta qaada lugihiisa dhuuqda nabde dhuuq kuma diidana waa ninkaagi de gurigaaga albaabka ku xiran ku dhuuq baraha bulshada hala iimaan waa maxfal xumadan cad oo socoto dumarkiina in adeersay si inuu walaalo waxa la dhigi jiray raggal wada meel macnaheedu waxaan ka wadaa dumarka reer soo wada dhaqan oo kale reer baan soo dhaqday waxyaalo badan oo privacy oo ii qorsoon oo gurigeyga albaabka ii xinaani odaygayga sameyn jirnaa jirto gabar kasto odayna way soo dhaqatay gaal iyo muslimbo ama wato hada la qabo wax public la iimaanayo oo la dhuuqayo oo fara laga dhuuqayo oo lugta saas loo leefayo adi ka hor ma arkin intii ka horeyso odayga cadaanka qabay waxaas waa fool xumo waxa quality-ga hoos u riday gabdhaha aniga dhalay anigoo kale gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha wada quman oo isla qiimo weyn ayaa quality-gaan ritay anaku ma aha inaan jano ku raadino lug meel ka samaraysa inaan malafsano subxaana asa wajala gabdha Soomaaliyeed waa ka soo darteen waa lagaaga horeey islaam baa ka horeyso lugaha ninka uu malafaysay ilma adeeranta caadi iska dhigtiin nimankiina jano ka raadiyo wax wanaagsan sameey laakiin anaka noola iimaanina interest kuma nihin lug la leefay wax ra'ay laakiin taabiga kalena waxa uu galayaa odaygeedii ka kabtantada waxaan kala hadlayaa ninka qabayo yiraahdo xaaskeyga waan jeclahay hadii lugu ii laftana lugaha u leefaya yes xaaskaaga waa jecesho labada qof bid'aadnaka isma guursadaan isku mana hamiyaan haduuna jecel kalkulsoon qaban rag badan oo sidaadoo kale ma sha Allah boqolow gabdho wada qabaa jooga ma fahanti wax kasto wanaagsan xaaskooda u sameeyaan laakiin adiga ka hor ma arkin public looked ku leefay adigana ma fahanti I don't know waxa bareejeynaysid taasi jecel lama dhahay do use baatay and I'm sorry my language do use wax weeyaan ninka naagtiis intuu public la imaado lugta u leefo u samee oo waxyaaluhu Ilaahay ku farsamay wixii diintu ku farsamay laakiin public ha la iimaanin moog waxa iska gadgadaysiin walaalayaal lug la leefay lugta aniga aan leeyahay dhaqon nadiifiyaan kala la boodana carabkaygu u dhaweeyo waa lug bid'aadan top of that come on now lugta meel kasta martaa so many bacteria meel kasta kaga jiro isku masaajo isku riix xaaskaaga laakiin rag badan oo waxa jira single ah xaaskaaga la shargareyn diyus baatay xaaskaaga snap youtube kala cagu garaadna ilma adeeryaal waxaan sugayaa fikradihiina iyo ra'yigiina iyo commentiyada idinkoo xanaf ku jirin insha Allah saa ugu soo jawaab lahayn Soomaali weynay maskaxdini ay ku yigiin rabaa inaa ogaado waa walaashin Firdawsi Jim Laf oo adkaysan weysay islaamahan lugaha malafsanayaan subxaan asa wajila noo kala wada quality-gan hoosa u riidina war yaa ragyow boqol anago kala noo lugana ma malafsanayn laakiin sideena kale wanaagana iyo sharafteena iyo dhaqankeena dad rag ku qancina wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Soomaali weyn salaan gubad waa walaashin Firdawsi Jim Laf
soomaali baa hore wuxuu tiri adduunyo qof noolay maxaa aragti ku laaban macnaheedu waxa weeyaan haddaa adduunyada usoo taagantaa nooshahay mar kasta wax kaa yaabiya arkaysaa video baryahan waxaa jiray wili gabar isqabaan waxaan u malaynayaa barta youtube inay leeyihiin laakiin facebook aan ku arko aad loo hadalhayay iyadoo odaygeeda lugihiisa saas u leeleefayso sidii dhalinyaro askariim ah ma fahanteen qof kastaba sibuu videoga uga hadlay anigana insha allah bartan baan uga hadlayaa oo youtube kagama hadlay youtube-na ma geysanayo videogan aan kaga hadlay ma jecli dadka youtube-ka inaan ku falanqeeyo laakiin waxaan jeclaa fikrad ahaan waxyaalaha arrimaha bulshada marka la keeno aan qalad ku arko wixii iiga habboon dhinaceyga waxaan ka dhaho inaan barta facebook ku deysto hadduu ilaahay idiin roon yahay aniga videogaasaan u arkay wiilkana falcelin buu kasoo bixiyey wuxuu yidhi xaaskayga waan jeclay jecel kale ma diidane maxaa aniga diidanahay weeyaan maxay umad hadalkayga u gudalgalaaya arrinta koowaadaan ka leeyahay videoga waxaa soo horduubtay walaashan gabadha soomaaliya iyadoo odaygeeda na tusinaysa inay ku qanacsan tahay maasha allah wax xun maaha laakiin maxaa xun weeyaan falkii iyo actionkee samaysay ayaa xun waxaa la yidhi doorada wax way wada cuntaa oo naa kasto ama waa lasoo dhaqdo waa la qabi jiray sideedoo kale ama waa gabar guurdoon ah ama waa gabar hadda la qabo reer leh doorada cuntada way wada cuntaa laakiin aftirashada is dheertaa naa kastaba ninkeeda see u qanciso iyo see lugaha ugu nuugto iyo see u duugduugtaba waa iyada waxay samayso waa prophecy waxaan soomaali confuse ku nahay wixii prophecy ahaa iyo wixii ahaa entertainment in between ayaan confuse ku nahay ma fahanta haddaan dhaho risiq baan waxaan ku raadinayaa anigoo odaygeyga ilaa hadda oday milaadu mid qarqab ilaahay si lugaha u dhuudhuuqayo ayaan isa soo duweynaa that is a shameful the way anoo hadalkayga sii wato abaayo gabar kasta ama waa xaas ama waa single mother ama reer bay rajeynaysaa adduunya intaasoo millions women ku nool ama waa mid la qabo ama waa mid la soo qabi jira ama hadda ka bacdi la guursanayo waay inay moofiyada qalaadka iyo qaldan iyo ku dhigaan waxaas ma ogiye ma arkaysid dad normal ah gaalna allaha ka dhiga ama kristaan allaha ka dhiga bab laga la imaanayo iyadoo ninkeeda fariis iyo lugaha dhuuqayso that's kind of disgusting haddaa xataa samaysida ku raadinaysa jano gooni ah waxay ku qorux badneed behind the door maaha in anaka nala sheergelisay sariirtaada waxa ka dhacdo that's how aniga ahaan aan u arko basically wixii guriga ka dhacdhaca nala sheergareynaysa video ka horeeyo waxa jirta islaan Soomaaliyeed oo oday cadaan qabo lugihiisa dhuuqaysay maxaan u arkaa inaa ka soo dardarteen waxaa la yiraahday dadka markuu reer magaalnimada iska raadinayo meel xun buu ka dhacaa ma fahanteen mana ka hadlayo reer magaalnimada ayaa si janaraadiskan wax yar kaga sheegaya ku soo celcelisay ninkaaga baari hadaa u noqotay janada galaysaa in adeer horta anigu wadaad miihi laakiin diinta basic waa ka garanaa xadiis badan waan dhageystay janada ninka lagama raadiyo camalaadkaaga adiga aafasho iisa ilaahay ugu cibaadaystid iisa umada kaaga dhoorsan tahay iisada afka iyo adinkaaga looga amaan helo iisa waalidkaaga baar ugu tahay umada bid'aadankana baar ugu tahay qof kasta jannada lagu helaa shakhsigan janna ka raadinaysa isaga inuu ka raadiyo weeye ma faatamaana ka hadlayo ha isdhiin janna raadinaya tiri kaamirad baa soo hoos fadhiistay in public intaasoo milyan oo Soomaali oo ku daawanayo 100 dumar oo kale ila ra'yo ku jiro isla qiimo weyn ayaa nin inta qaada lugihiisa dhuuqda nabde dhuuq kuma diidana waa ninkaagi de gurigaaga albaabka ku xiran ku dhuuq baraha bulshada hala imaan waa maxfal xumadan cad oo socoto dumarkiina in adeersay si inuu walaalo waxa la dhigi jiray raggal wada maal macnaheedu waxaan ka wadaa dumarka reer soo wada dhaqan oo kale reer baan soo dhaqday waxyaalo badan oo privacy oo ii qorsoon oo gurigeyga albaabka ii xinaani odaygayga sameyn jirnaa jirto gabar kasta odayna way soo dhaqatay gaal iyo muslimbo ama wato hada la qabo wax public la imaanayo oo la dhuuqayo oo fara laga dhuuqayo oo lugta saas loo leefayo adi ka hor ma arkin intii ka horeyso odayga cadaanka qabay waxaasi waa fool xumo waxa quality-ga hoos u riday gabdhaha aniga dhalay anigoo kale gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha wada quman oo isla qiimo weyn ayaa quality-gaan ritay anaku ma aha inaan jano ku raadino lug meel ka samareys inaan malafsano subxaana casa wajalla gabdha Soomaaliyeed waa ka soo darteen waa lagaaga horeeyay islaam baa ka horeyso lugaha ninka uu malafeysay ilma adeeranta caadi iska dhigtiin nimankiina jano ka raadiyo wax wanaagsan sameey laakiin anaka noola imaanina interest kuma nihin lug la leefay wax ra'ay laakiin taabiga kalena waxaan u galayaa odaygeedii ka kabtantada waxaan kala hadlayaa ninka qabayo yiraahdo xaaskeyga waan jeclahay
haddii lugaha iili laftana lugaha u leeleefaya yaas xaaskaaga waa jecesha oo labada qof bida'aadninka isma guursadaan iskumana hamiyaan hadduuna jecel kalkulsooni qaban rag badanoo sidaadoo kaleo maasha allah boqolow gabdho wada qabaa jooga ma fahantay wax kastoo wanaagsan xaaskooda u sameeyaan laakiin adiga ka hore ma arkinin public lugta ku leefaya adigana ma fahantay arona waxaa bareejeynaysid taasi jecel lama dhehe duyuus baa tahay and I'm sorry my language duyuuska waxa weeyaan ninka naagtiisa intuu public la yimaado lugta u leefo u samee oo waxyaaluhu ilaahay ku farsame oo wixii diinta ku farsamay laakiin public ha la imaanin moog waxa iska gadgadaysiin walaalayaal lug la leefay lugta aniga aan leeyahay dhaqon nadiifiyaan kala la boodana carabkaygu u dhaweeyo waa lug bid'aadan top of that come on now lugta meel kasta martaa so many bacteria meel kasta kaga jiro isku masaajo isku riix xaaskaaga laakiin rag badan oo waxa jira singala xaaskaaga la shargareyn diyuus baatay xaaskaaga snap youtube kala cago garaadna ilmaadareer waxaan sugayaa fikradihiina iyo ra'yigiina iyo commentiyada idinkoo xanaf ku jirin insha Allah saa ugu soo jawaab lahayn Soomaali weynay maskaxdini ay ku yigiin rabaa inaa ogaado waa walaashin Firdawsi Jim Laf oo adkaysan weysay islaamahan lugaha malafsanayaan subxaan asa wajila noo kala wada quality-gan hoosa u riidina war yaa ragyow boqol lug anagoo kala nool lugana ma malafsanayn laakiin sideena kale wanaageen iyo sharafteena iyo dhaqankeena dad rag ku qancinaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh